السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو أحمد علي عمد كسو هذا موضوع إني تعالى نوعها مايكروسوفت وورد 2019 ما أنتو حان والله سدح عن قضب وهذا أرت سيلو استعماله سمارت أوبجكت عن سكرين شوت رونانتي سكرين شوت واد بولي هاي سمارت واد أرتي سمارت أرتين والله بس كدو قرآن هذا أي الورح قرآن waxaynu ku bilaabeynaa sida loo isticmaalo word art. Word art waxaa loo isticmaalaa headingska iyo qoraalada ciwaanada iyo waxyaabahaas ayaa loo isticmaalaa. Inu baraadkeeno page cusub inoo soo fur, kadib waxaad tagaysaa insert, kadib waxaad arkaysaa halkaas text ay ku qoran tahay waxaa ku qoran word art. Word art ay ku dhufanaysaa, kadib midka rabta ku dhufanaysaa. kalaradaas waa mid kalarada leh kala duwan yihiin, wax micno weyn kulma duwano. mid markaa midka ku dhufanaysaa midka cagaarka ku dhufanayna hadeertaan waxaynu ku qoraynaa welcome another time markaan qorno waxaa naga rabaa inaan edit gareyno kalaradiisa wixii aan bedelno. waxaa ku dhufanaysaa kadib waxaad tagaysaa shape format, kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay text fill color, kadib kalarkiisa ayaad bedelinaysaa. select all cell text fill color ku dhufo, waxaad ka dhigtaa cagaar ama more color. horaa usoo qaadanay kalarada si loo siiyo textiga iyo waxyaabahaas. more color ku dhufanaysa, kalarka rabta kasii dhufanaya. cagaarka daa cagaar oo wuxuu ahaa buluug, daa wuxuu ahaa buluug BBA, midkan waa buluug tiqa. haddii aad kala rabtid text effect text uu leeyahay waa bedeli kartaa. shadow waa si kartaa, textiga shadow mid oo hoos ku jiro waa ka dhigi kartaa. glow waa isagana waa wax yar glow shadow camal oo matala isagana waa marba mid ka rabta tijaabinaysaa. waxaa ugu muhiimsan transformkaas waxaa ka dhigaa fartaada qalqalo adaa urugtid sidaas oo kale, ama waadka daa rabtay inaad ku samaysid loogo, waxaad isticmaalaysaa badanaa transformkaas aad ku dhufanaysaa qalqalaas ka dhigaysaa, ama kor hadaa rabtid korkaas u jeedinay. hadaa rabtidna wareeg mid isku wada xiran oo saas oo kale kaaga dhigana waa kaaga dhigaa, laakiin waa mid isku aada maahan. farta saas in lagu qalqalociyo oo styleka si fiican u saacid photoshopka ayaa kaga fiican. midkan waa marbaad midka rabta aad tijaabinaysaa. transformkaas tusoo ku egay 3D hadaa rabtidna waa kana asagana waa macna 3D marba nooc kaaga dhigaa 3D. qodobka salaas ayaan kaaga baxaynaa. waxaa kaloo isticmaalaynaa hackiska ee word art markii ciwaan isticmaalaysid noocan inaad isticmaashid badanaa way fiican tahay, laakiin waa laga sii fiican yahay. word artiska hacks yar ayuu leeyahay. transformka ayaan bedelaynaa, ku dhufo text effect ku dhufo transform dheh, midka toosan noo dooro. kadib wixii yareyn kuwaas kale geesaha ayaa ka yareynaysaa, geeskan ka jiidaysaa. qaaditaanka waa caadi, waa qaadan kartaa marba meesha rabtaa dhigan kartaa, bliiska rabtaa dhigan kartaa. control n waa save gareynayna. word artigan ayaa waxaa rabnaa inaan si kale u isticmaalno oo qaab kale. hadda oo kale cashirka hadda pageka ku qoraya word artigiis waa nooc kale. sidaan ugu dhigaa noocaas oo kale word arti noocan ayuu yahay. word arti noocan iyo word artigan ku dhufo waa isla waadkiile asigoo word artigan ku dhufo insert tag word artigan ku dhufo. difference u dhaxay waa ujeedaa. kan style gooni ayuu ku siinayaa. style nooc aragta dooran kartaa kalaradiisa. waxaa sidee usoo doortaa midkan waxaa kusoo dooranaysaa marka ugu horeyso waa save gareynaysaa. midka arabta ayaa save gareynaysaa, kadib ayuu isbedelayaa. markaa save gareysid meeshaas ay ku qoran tahay word document ayaa waxaad ka dhigaysaa word 97/2003 ayaa ka dhigaysaa 97/2003 document ayaad ka dhigaysaa. hore ayaan soo sheegay word badan markaad sameynaysid wax ku qoraysid noocan inaad ka dhigtaa fiican, sababtoo ah
word kale markaa geysid qoraalkaaga iyo waxyaaba isma bedelayo. marar qaar waxaa laga yaabaa wordka document caadi markuu save garaysan yahay ama meel kale oo aad geysid computerka lagu furo farta inay isku dhex yaacdo oo ama adi waxa aad soo qurxisay sida aad usoo samaysay kale ay noqdaan ayaa laga yaabaa. laakiin word 2000 word 97 markaa wordka la geeyo wuu qaadanaa office 7 office 10 office 19. hadda anaga waxaan isticmaalaynaa office 19 mida ayaan deligay waxay ku shaqeynaa markuu ku dooran yahay save type-kaas oo noocan ku yahay desktop ayaan dhigaynaa waxaan ku qoraynaa document 2 oo ugu qornaado save ayaan leenahay. asaga kule ku soo sheegayaa wuxuu leeyahay the following features this document are not supported by earlier version of Word. versionka of maqaabilsan laakiin waa midka ayaa fiican. hadda kan waa wuxuu rabaa Word document caadi in laga dhigo versionka soo qaabilsan. continue ayaan leenahay then kadib Word artigana kan control A ayaan leenahay. hadda kan Word artiman qoraal caadi ayuu isku bedelay. Word artiga marka Word artigana hore ayaan bedelayna control A ayaan leenahay insert aad tagaysaa then kadib Word art ayaan leedahay. waa ujeedaa in isbedelay anagoo meeshii hore aan joogno. waxaan sameynay waa save garaynay save type-ka ayaa waxaan ka dhignay 97 document.word ka dhignay. markaan inta aragtid ayaa dooranaysaa midkan oo style-kan leh document-kaas oo kale noo door then kadib okay aan leenahay. inaad tuusid daartidna meeshaan ku dhufnaysaa daa text effect ay ku qornaysaa meeshaas sida ujeedin control n san ugu shaqeeyaan insert text midna soo door meesha soo ujeeda text effect ayaan ugu qoran. hadeertan waxaa ku qoran text effect hadda nooguma qorno waxaan ugu qoran in ku dhufano Word artiga ku dhufano waxaa ku qoran change shape ay bedelaysaa noocu yahay. hadoo kale mid adaa wuxuu ahaa mid noocan oo ahaa mid kaska oo mid plain text markaa doorato linekaas oo saxan markaa dooratid waa mid far oo caadi u toosan waaye. inaad qalloociso daarabtidna waa kana qalloociso kana qaabilsan. textigaas yarka oo hoos ay ku qoran tahay welcome another time kale oo hoos ku qoran tahay waa shadowna halkan ayaa laga xukumaa. wixii shadow halkan ayaa laga xukumaa. waxaad ku dhufanaysaa shadowgaas ku dhufanaysaa inaad si daarabtidna waxba ka bedelin halkaas ayaa ka xukumaysaa. falaaraha shadow effects-ka xukumaysa kor inaad qaadid hoos soo dhigtid weliba zaid inaad ugu dhigtid daarabtid waa wadaysaa halkaas ku wadaysaa. fartaan inaad qaadid daarabtidna waxaad ku dhufanaysaa Word art markaad joogtid inaad qaadid daarabtid waa ku dhufanaysaa kaliya ay ku leedahay calaamad isku aadi ku aadinayna waxaad ku dhufanaysaa text box then kadib waxaad ku dhufanaysaa wrap text ayaad kasii dooranaysaa influent markaas waa qaadi kartaa. qaaditaanka markaas adaa qaabilsan ku aadi calaamadaas application-ka inaan la hela raadinayaa then kadib waxaad qaadi kartaa falaaraha ku sakin kartaa. markaas then kadib falaaraha ku sakin kartaa meesha rabto place karto geysan kartaa. inaa wax ka edit garaysa daarabtidna waa right click ayaa ku leedahay edit text ayaa leedahay right click markaa leedahay edit text ayaa leedahay. assalaamu calaykum ku qori kartaa waxaa rabto ku qori kartaa oo channelka magaciisa ku qorayna jartan edit kas na shaqeynaysaa ugan then kadib okay ayaa leedahay. Word artigana dadkan saan ayuu noogu shaqeynayaa. effectigan iyo waxyaabo si loo bedelin hore u aragnay. Word artiga ku dhufanaysaa effectiga iyo waxyaabo soo bedelaysa text form-ka xitaa waa bedeli kartaa nooc arta ka dhigan kartaa noocaas ka dhigan kartaa. inaad ka qaada daarabtidna shadowgana halkaas ku dhufanaysaa shadowga no color no shadow camal aad leedahay waa ujeedaa. waxaa kaloo sameynaynaa Word artiga si loo isticmaalo fahanay looga inaan ku sameyno oo kale loo wareeg anagoo shape isticmaalino video kale ayaan soo sameynaynaa si loo adoo Word artiga adoo isticmaalaysa sidee loo sameeyaa textiga iyo anoo shape isticmaalaya.
anoo shibkaas keliya isticmaalayo shibkaas wareega anagoo isticmaalay iyo word artiga anoo isticmaalay sida loo sameeyo video gooniya ku sameynaya waa maadaama video aan hadda kusoo dhex daro labadaas qodob kale ayaa meesha ka dhumayaan waqtigan zaid ay u dheeraanayaan waa fahanteen aan umaleynaya sida loo isticmaalo word arti kalaradan sida loo soo fahanteen aan umaleynaya maasha Allah kalar qurux badan ayaa ku jiro nooc aragtuna dooran kartaa oo gudbayna noogiya cashirkeena cadirtan word arti soo baxnay steps word arti inuu laba nooc kala yihiin waa soo aragnay mid oo noocan ah oo toosan oo ina fartaada kalaradiis mid ka rabta aad dooran kartid midkan kalarkan aad dooran kartid iyo mid kale kalar gooni ku siinayo oo asiga dooran yahay waa soo kala marna umaleynaa adkale aan leenahay channelku way soo qoranayso sg wada halkaas soo marna umaleynaa shadow ina ka qaadato shadow waxa wax yar falxum yar inuu keenayo umaleynaa shadow no shadow leedahay kadib waa meesha noo saara qodobkan soo sameynaa mid kale oo ka duwanaan wuxuu ahaa control plus marka dhaadid oo ku doorneen save type kama kuusan ku doorneen word hada waxa dooran word document caadi ah door markuusan ku doorneen word 97 markuu ku doorneenna waa sidaas sidaan ay noqonay word artiga marka ku dhufatid word artiga sidaan caadi ay noqonay kala gooni ku siinayo features badan oo qurux badan kuma siinayo laakiin intaan ku siinaa asagana ma xumo ciwaan hoosaadka kale u adeegsan kartaa inaad ku qortid ciwaan hoosaadka hirintiisa wixiisna ma dhib badno qodobkan halaas ay u gudbay waxaan rajeynayaa inaad si fiican ugu bogato shortcut ayaan halkan ugu qoray shortcut-kan ma shaqeynaa mise ma shaqeynaa uu shaqeynaa shortcut-kan waxaa isticmaalaysaa markii keyboard-ka aad isticmaalaysaa mouse ama wax yar oo kale leedahay yahay ama inaad bubsis daartid qof farfuuqta tahay alt ay leedahay insert maxaa hoos ka xariiqan xarafka uu sii maxaa waaye n waaye kuwan kulligood oo isticmaali kartaa shortcut-kan hadda maanta aan ku soo bandhigay word artiga muxuu siiyay xarafku siiyay xarafka w ayuu siiyay waa u jeedaa kadib falaaraha ayaa isticmaalaysaa midka rabtid aad kalik ku leedahay kadib tab ayaa leedahay tabkeena okayda iyo meelahaas ku adsanaysaa katarsadii iga leh midkaan dartaan waa shortcut soo isticmaali kartaa oo kale anoo waxaan rabaa anoo home joogo inaan geeyo layout alt ay leedahay layout xarafka uu wata la fiirinay kuwan xarfay wataan ay fiirinaysa mar walba layout wuxuu wataa xarafka b for ben leedahay kadib layout waa jooga sidaas ay jooga inaad sii doortid daarabtin alt ay leedahay layout b for ben leedahay alt b for ben katarsada alt b for ben kadib kuwan kale xarfa ay ku siinaya margin daarabtid page size daarabtid sz ay ku siinaya page size daarabtid oo kale page size ka ku dhufna mujida adoo kale ku dhayn aku celiyo alt b page size sz caadi ku soo raadin kadib waxaad isticmaalaysaa falaarahaaga escape la marray inaad doorto marray escape ayaa leedahay inaad rabin escape badna dadka soo ka arkaysa waqtiga ku dheereenin aan isticmaalna smart object asagana waa text waa waxyaabo oo shape diyaarsan ee la rabo inaad ku qortid textiga smart object control n node kadib waxaa ku dhufanaysaa insert tab smart object waa kana smart object markaa ku dhufatid wuxuu ku siinayaa features badan all featureska kuwana meesha ku jiro mid kasta gooni daarabtid waa kana list daarabtid ina wax daarabtid halkaas ku dhufanaysaa process waxyaabo process ama ina qortid daarabtid processka loo mar lahaa sida jaranjaradaas oo kale okay aan leedahay ku dhufanaysaa process hebel marka ugu horeyso waa inaan sameeyo talaabada ugu horeyso inaan qaado waxay tahay inaan video daawado video markaan daawado kadib ayaan waxaan sameynayaa practice no video daawanaya practice la sameynayaa kale waa adartan waa processka lama macnaha waa waxa ka dhow qoranaysa markaas soo frid practice markaas sameeyeen kadib without ano video daawanaynin
sameynayaa without video anoo daawanayna practice-kii wixii aan daawa sameynayaa process-ka soo kala qortay markaas kadib ayaa waxaa leedahay inaad qadartid aad ku dhufanayso fanaxda sirta tan waa infront camal ay u taagan tahay gudahaas waad soo dooran kartaa meeshaan gudahan format inaad ku dhufatid word art wrap text aad ku dhufatid kadib infront aad dooratid ama inta inaad ka dooratid shape-ka series-ka oo geeskaaga soo qabanayo waxaan leenahay markaas waa yareysanaysaa page-keedu ku weyn halkaas aad soo yareynaysaa meeshaas process-kaasna maraa rabaan jaranjaradaas adoo kale shape-kan aniga maanan diyaarin wuxuu ku diyaarsanaa clip word art ay ku diyaarsanaa smart art aan leeyahay smart art ayuu noogu diyaarsanaa word art waa midka kale shapeska caadiga ah kusoo qoraynaya midka kore smart art marka waxyaabo badan ayaa ku diyaarsan mid kale aan tijaabina markaan smart art ku dhufo waxaan ku dhufanayaa cycle oo kale waxyaabo cycle markaan qorayo information cycle ku saabsan oo kale midkaas oo kale markaan ku dhufto xitaa wuxuu kuu sheegaa halkaas ayuu qoraal ku qoraya used to represent continuing sequences of stages oo kale waxyaabo u soconayo cycle waa fahmi kartaa hard chart asagana waa waxyaabo inaad samaysid oo kale hard chart waxaa lahaa inaad steps-ka ayaa hard chart isticmaalaysaa steps-kaas oo kale asagana waxaa isticmaalaysaa markasta aad qodobo inaad taxdiid rabtid shape-ka ku anfaco waxyaabihii aad ka doonaysid steps-ka oo kale cycle oo kale hard chart oo kale inaad isticmaashid halkaas oo kale aad waxaa qori kartaa hadduu mawduuc weyn yahay mawduucaas magaciisa qoraysaa halkan oo kale mawduucaas mawduuc ximaanayo oo ka baxsan mawduucan wax oo isku xiran waa marka hard chart oo aan kala maarmin steps oo kale badanaa waxaa loo adeegsadaa marka aad wax tusaaleynaysid oo kale steps markay leeyihiin oo kale chapterka oo kale markaa isticmaalaysid subtitle-kiisa ciwaanaha hoos imaanaya ciwaanaha hoosaadka ciwaanada si hoos imaanaya oo kale aad isticmaali kartaa kuwa kale aan sii fiirino marka smart object waa wax badan ayaa ku jiro kama wada gaarno kulligood inaad mid kasta ku dhufatid tusaale inaad ka bixisid kama wada gaarno halkaas noogu dhufo mid kale aan iska raadinaynaa waxaad ku dhufanaysaa hard chart soo aragnay midkaan oo kale saddexda isagana ku dhufanayna halkaas oo kale markaa ku dhufatid isagana waa midkii hore kan waa mid gooni kaas ka qadartid labada isku saaramayna ka qaad infront ku dhufo hoosken ka darsid kaligiis soo qaad ku soo qaad shape geeskasna ka qabta fiican ku dhufo meesha text ay qorantaa hadda oo kale meesha waxaa loogu talagalay meel oo kale center u ah oo centerkaas oo loogu baahan yahay wax faraaci ama waxyaabo oo muhiim u baahan yahay centerkaas soo u shaqeeyo oo kale hadda oo kale waxaa ka soo qaadayna company aan leenahay company halkaas waxaad ku qoraysaa company-gan muxuu u baahan yahay marka company-ga saddex shay ugu muhiimsan ee ugu baahan yahay wuxuu yahay company inuu leeyahay marka ugu horeyso shaqaale iyo dad ka shaqeeyo u baahan yahay shaqaale oo kale u baahan yahay company-ga oo kale maxaa kaloo u baahan yahay inuu leeyahay custom markaas company hadduu custom leeyahay shaqaale u leeyahay shaqaale company ma yeeshan karo company custom inuu leeyahay waaye kow inuu shaqaale leeyahay dan kadib inuu custom leeyahay dan kadib uu leeyahay customka wixii ay heli lahaayeen u baahnaan lahaayeen equipment oo qalab ha ahaado supplies ha ahaado adeeg shay oo kale ahaado oo kale hadda waxaan leeyahay supplies u baahan yahay adeega supply company suppliers company markuu leeyahay oo kale customka ataa waxaa ka horeeya supplieska ayaa ka horeeya company markuu haysto shaqaalaha markuu uu hayo wixii uu ku shaqeyn lahaa company equipment ha ahaado ama supply ha ahaado meesha equipment ama supply waxyaabo badan soo galaya dan kadib customkii markaas waa loo shaqeyn karaa custom inuu kadib custom abuurto waa adartaan aniga company musharxi marka qodobadaas uu tixleed adeemayna
aad meeshan company dhahday waxyaabo kale waa dhigi kartaa school waa dhigi kartaa schoolku wuxuu u baahan yahay isaan ama shay oo aad qoraysid oo kale hadda oo kale biology oo kale haddaa qoratid biology markaa qoratid biology saddexda laam ugu muhiimsan ee ugu waaweyn aad qoran kartaa oo kale biochemistry mawduucada ay tahay ahaado caafimaad ha ahaado company ha ahaado mar walba waxaa rabtaa waa adeegsan kartaa smart object halkaas aynu u gudbaynaa waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iideen haddeertaan waxaan isticmaalaynaa screenshotkan waa word art wuxuu leeyahay wordka wuxuu wataa screenshot gooni computerkana screenshot gooni uu wataa inserted aan tagno screenshot waa ka haddeertaan screenshotkaas hadda muxuu uu highlightkaas oo u qariyay mataqaanaa screenshotka kuma shaqeynayo markuu kuu dooran yahay extensionkan word 97 markuu kuu dooran yahay kuma shaqeynayo wuxuu kugu shaqeynayaa control n markuu kuu dooran yahay word document caadi markuu kuu dooran yahay screenshotka caadi kugu shaqeynayaa insert tab aad tagana caadi u soo muuqdaa screenshot waa ka qaadi karnaa screenshot markaa qaadaysid waxaa ka horeyso pageka ka horeeyay inaad tagtid kadib aad tagtid kan kusii xigay screenshot inaad kaga qaada arabtid screenshot aad ku dhufanaysaa kadib screenshot ayaa leedahay waa kan hadda midka ku horeeyay aad tagaysaa kadib screenshotka waa ka qaadanaysaa screenshot waa ku aadinaysaa inta arabtid adeertaas fiican uguma aadin waxaa hadda oo kale screenshot kuwan dhan screenshot ayaan u adeegsaday iconskan word artiga screenshotkaas ayaan kusoo qaaday markaa sidaan ugu qaaday markaad joogtid insert aad tagaysaa screenshot aad isticmaalaysaa kadib screen clipping ayaa dooranaysaa kadib insert aad tagaysaa insert markaad joogtid adoo joogtid aad kadib screenshot soo dooranaysaa word artigaas keligiis ay ku aadinaysaa si fiican uguma aadin adoo kale quick accesskaas ku aadinaynaa word art screenshot wordka micna wordka lagu keenaa screenshot oo computerka wataa jiro oo la dhaho sniping toolkaas wuxuu fiican yahay screenshotkan oo wordka u wato sniping toolkaas ka fiican sniping toolka waxaad tagaysaa start buttonka aad tagaysaa waxaad qoraysaa sniping tool kan wordka kama tirsano faa'iidahan ayaan kusoo diray screenshotkan wax kastoo banaanka ka ahtaa ku qaadi kartaa wordka waana keeni kartaa hadda oo kale waxaan rabaa inaan keeno cashirkan oo kale waxaa bixinaya this computer oo kale sharxooya this computer oo kale sharxooya screenshot inaan ka qaadan rabaa this computer sawirkiisa meesha saaro kaligiis aad ka qaadaysaa waxaa leedahay new horta kow markuu meesha isku dooray new saas markuu ku yahay new ay ku dhufanaysaa kadib waxaad dooranaysaa computer afartigiisa ku aadinaysaa waa xirfadaada ku xiranta kadib right click ayaa leedahay copy ayaa leedahay ama file ayaa leedahay save ayaa leedahay save markaad aadid desktop oo kala dhigan kartaa kadib meesha soo png kaaga dhigaa waxaad ka dhigan kartaa file.jpg ka dhigan kartaa kadib caadi ay u save garaynaya copyna waa dhanay waana save garaynay copy iyo save garaynta farqiga u dhexeeya maxay tahay copy markaad joogtid adoo save garaynin computerkan storage ka buuxinin word artiga inta imaadid si degan control v ayaa leedahay adoo si degan isticmaalaysid waxaad ku dhufanaysaa picture format aad ku dhufanaysaa inaad qaad rabtid infront markasta waa muhiim infrontkaas macnaha hadda kale marka ku wuxuu ahaa cashir taa smart artiga taa hoos ay u dhigay infront markaad dooratid stylekaaga hore taa wordkaaga uu ku soo noqonayaa infront kuwa kalena spacekooda caadi u soo noqday kana gooni ayaad u qaadaysaa maanta oo kale cashirkan oo kale hadda oo kale sg meesha ku qoran tahay aan edit gareynaya right click aan leenahay edit text aan leenahay waxaan ku qoranaa computer icon computer icon ayaa halkaan noo yaalo fartaada kale marka saan u kala jiidantahay aadana marax waay waxyaabo trickiska ay kamid tahay marka saas u kala jiidanta marax waay xidaa wax yar ka yareynay intana wax yar ka soo yareynay kadib caloosha wax yar bayna ka soo yareynaysaa waa kaad computer icon caadi u tusay sana u qaad midkii hore kan aad oo kale copyright kaliya markaan dhahay copy aan dhaa ku keen midkii hore ku keenay cashar hore ayaan ku soo qaadanay hadaa daawadan dib soo daawo waaw waxyaabo dheeraad ay ku jiro sida picture-ka naftirkiisa geesaha loogu jiro aduu gadaal hal color yahay colorkaas sida loogu saaro
mawduucyo hore ayaan ugu soo hadlay haddaan soo daawanid waxaan rajeynayaa inaad dib usoo daawan doontid. Insert tab ayaa tagaysaa kan casharka hore aan soo qaadanay picture ay ku dhufanaysaa dan kadib desktop ayaa leenahay. Sawirkiina hore wuxuu yaalay desktop, waxaan ku qornaa computer aan ku qornay waa ka caadi ay usoo gelinaynaa. Dan kadib waxaad ku dhufanaysaa format, dan kadib waxaad ku dhufanaysaa in front, dan kadib iconka caadi ay u keenaysaa. labadan midkii kuu fudud waa taqaanaa inaad right click ku dhahdid markaa sniping kaas oo kale markaad qaadid oo kale new ayaan leenahay. Sniping kaas oo kale markaad qaadid casharkan dhan ayaan ka wada qaadaynaa. right click inaad dhahdid copy aad dhahdid, dan kadib halkan aad imaadid control n meeshaas ma geenaynay oo control paste aad ku dhahdid, control v aad dhahdid word art saas aad ku keentid iyo inaad save garaysid dan kadib oo picture-ka aad soo gelisid. labadaas midii kuu fudud mid aad rabta aad qaadan kartaa. qodobkan qodob kale saddexdaas qodob ayaa maanta waday halkaas ayuu nagu egyahay mawduucina. waxaan rajeynayaa inaad wax un ka faa'iiday. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqoto channelkan, waxaynu ka codsanaynaa inaad xukumatid channelka subscribe aad dhahdid. anaga dhiirigelinaya inoo tahay like-tan aad saartid. like-ta waxay ka micno tahay videogan wax baan ka faa'iiday. anaga adina wax badan kaagama baxay, anaga faa'iiday inoo tahay. videogan inaad wax un ka faa'iiday aan soo sameeyay inaan like iyo subscribe ku helana waa abaalmarinta ay siin lahayd. adiga ayaa kuu sameeyay like subscribe intaad saarto abaalmarinta ay siin lahayd. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.